mid ka mid ah maansarugyadii Soomaalida ee noolaa intii u dhaxaysay 1800 ilaa 1900 qarnigii 19aad ilaa kii 20aad oo loo oran jiray Ismaaciil Axmed Barre isla markaa ka tirsanaa daraawiishtii Sayid Maxamed Cabdulla Xasan oo gobolka Sare ka soo jeeday wuxuu ahaa nin abwaana oo gabayo qiimo badan lahaa waxa soo qaadanaya gabay ka mid ah gabayadiisii Tuducyo ku jiray gabigiisa oo uu si qurux badan oo farshaxamaysan uu inoogu soo gudbinayo nolosha miyiga iyo sida ay quruxda badan tahay marka gabigu dheeriyay laakiin Tuducyo kooban baan ka soo qaadanayaa Tuducyada waxa ka mid ahaa marka uu gudoon dhaco hadii guriga loo qaybsho reer soo gulaansaday haduu galabta soo hoydo gabaad lagama maarmay hadaan gudimo weyn qaato birta goonyahayga hadaan garab ku taagleeyo sida oo dagaalada hadaan garangar soo deelo reer soo gulaansaday haduu galabta soo hoydo galadeeba way hadii gaari ka adeegto gogol meel ay dhigay haday igu gunaynayso angaawo hawshuwa midkii gacal soo mooda habeenka ilaahuma gafino waan gaboolahay garka waxaan u feeraa sidii goondarka cadmeed gabayga iyo haasaawahan gareeya maxaad ka xusuusataa taariikhdii Soomaalida